waxaa jiray filim Maraykan ah oo la soo saaray sanadkii 2011 oo lagu magacaabo CONTAGION. waxa uu ku saabsanaa gabar u dhalatay wadanka Maraykanka oo Chinaha u timaaday arrimo shaqo. Kabacdi markii ay ku laabatay wadanka Maraykanka ayay waxay dareentay xanuunkaas oo leh calaamadaha coronavirus oo hadda leeyahay oo ay ka mid tahay qandhada, naqaska oo qofkii ku dhega ilaa ay markii dambe muddo kadibna isbitaalka ku geeriyootay. Gabadhaas waxay cudurka qaadsiisay cid kasta oo ay contact ama xiriir la yeelatay oo ilaa markii dambe gaarsiiyay cudurka 26 milyan oo qof adduunka daafihiisa oo dhan oo badankood u dhinteen. waxa uu sababay cudurkaas in magaalooyin fara badan oo Maraykanka ka mid ah ay cidloobeen sida hadda coronavirus uu Chinaha ku sameeyay oo kale iyo sidoo kale takhaatiirta oo aan wali daawadiisa helin ilaa xilligaas 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Matt. No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures No. and allergies. As of last night, there were 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. Can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day one, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. haddaba sida ciwaanka nooga muuqata cudurkan malasdhihi karaa waa shirqool Maraykanku arrintan ayuu wax ka ogaa. intaan faahfaahinta arrintan guda gelin waxaan rabaa inaan idin cadeeyo inaan wax go'aan ah ka qaadan doonin arrintan inta aan muuqaalkan ku dhex jirno, sababtuna ay tahay in shaki weyn uu keenay filimkan iyo qisadiisa oo aad ugu eeg arrinta hadda ka socota China ee coronavirus iyo dhibaatada uu keenay. sidaan wada ognahay China waa wadanka ugu populationka ama dadka badan adduunka waxa uu kor u dhaafay ilaa 1 bilyan oo qof. waxa uu leeyahay wax soo saar shideed waxa uu gaaray heer 60% alaabta guri kasta taala lagu warshadeeyo ama lagu sameeyo China oo ay ku qoran tahay made in China. Maraykanka oo aan ognahay inuu isku haysto inuu yahay aktarka adduunka kadib dagaalkii labaad ee adduunka uu ka guuleystay wadanka Japan ayaa waxa ay China ku noqotay laf dhoon gashay dhan dhaqaale inkastoo sanadihii dambe uu ku hayay Chinese-ku xoog ama xiriiri xagga siyaasadeed maadaama China-hu wadamo badan oo Afrikaan ah xiriir dhaqaale oo aad u fiican la sameeyay asaga oo aan focus ka saarin arrimaha siyaasadooda oo kula shaqeysta xagga dhaqaalaha. haddaba taariikhda marka aan dib ugu laabano waxaan arkaynaa inay hagadaamooyinka dagaalka aysan ka mid ahayn oo kaliya hubka culus la isku adeegsado xilliga la dagaalamayo oo sidoo kale ka mid tahay xataa isticmaalida hubka loo yaqaano biochemical weapons oo ah in la adeegsado virus ama xanuun lagu bacriminayo ama lagu talaalayo dadka degan wadan aad rabto inaad la dagaalanto kadibna si tartiib ah ayuu ummadii u dhameynaya cudurka magaciisa ama saameyntiisa iyadoo aan la garan kabadaa in dawo loo helay. waxaa soo baxaysa marka aan ka eegno habdhaqankii uu kula dhaqmay dawladda China wadanka Maraykanku kadib markuu cudurku bilowday dhammaadkii December 2019 ayaa waxa uu Maraykanku ku amray shacabkiisii iyo shaqaalihiisa inay ka soo baxaan wadanka China sida ugu dhaqsaha badan taas oo dawladda Chinese-ku ku dhaleeceysay arrintaas maadaama aad moodo inuu u bahalagelinayo wadamada kale ee la jaarka ah ama la xulafada ah ama fiirsanaya Maraykanku inay sidoo kale iyaguna dadkooda kala baxayaan taas oo China ku ridaysa arrin go'doomin ah. waxa aad loo wajahsan yahay sidoo kale in Maraykanku oo arrintan sameeyay inuu daciifiyo dhaqaalaha China si uu uga soo kabto tartanka uu kula jiro wadanka China inta ay dawladda China la tacaalayso inay hesho cudurkan dawadiisa. sidoo kale waxa xusid mudan in magaalooyin fara badan oo China ka mid ah oo xataa caasimadda Beijing ka mid tahay ay noqotay cidlo. magaalada oo 22 milyan 30 milyan oo qof ku
nool yihiin oo wadadii highwayga hal gaari ama uusan wax gaariya uusan marin runtii waa dhibaato la soo taaban karo dhanka kale markaan eegno tafaasiisha ama wararka ka soo baxay caalamka waxa jira wariye caan ah oo dawladda Ruushka afkeeda ku hadla iyo telefishinkeeda ayaa wuxuu soo saaray warbixin uu dhaleecaynayo Maraykanku inay wax ka ogyihiin waxa uu adeegsaday kelmadda ah corona sideedaba waxa lagu dhahabiiray aflaatiinka iyo Ruushkaba taaj oo micnaheedu yahay taajka yani boqorada loo saaro isagoo ka qiyaas qaadanaya in madaxweyne Trump uu taajkan isticmaalay dhawaan waxa hay'adda caafimaadka adduunku ku dhawaaqday in laga bedelay magacii coronavirus loona aqoonsaday magac cusub oo la yiraahdo COVID-19. We have a new name for the coronavirus. The World Health Organization has officially called it COVID-19. Co for corona, Vi for virus, D for disease, and 19 because it started last year. The name, though, of course, isn't the most pressing concern. On Monday in China, it suffered its highest number of deaths in one day. 103 people died just in Hubei province alone. The overall death toll in China is now over 1,000. sida aad ku aragtaan muuqaalkeena waa agaasimaha guud ee WHO Mr. Tedros oo ka hadlaya in virusku uu ka saameyn badan yahay weerarada argagixiso oo la isticmaalayo xabada ama hubka darandooriga u dhaca kana dhibaato iyo saameyn badan yahay mawduucan maanta intaas ayuu naga eegyahay waxa idin soo gudbinaya aniga oo ah Yaasiin inta ku kulmi doono mawduuca xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures and allergies. As of last night, there were 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. Can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day one, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples.